Xagasha asteroidka dhagaxyada socda waa ay tartiib lumi kartaa. Daraasad cusub ayaa muujisay mustaqbalkeeda. Xagasha asteroidka waxaa laga helaa meeraha u dhexeeya Mars iyo Jupiter, waxayna tahay urursi ballaadhan oo dhagaxyo ah oo la rumaysan yahay inay ahayd meeraha aan weligiis noqon. Markii nidaamka qoraxdeena uu dhashay 4-6 bilyan oo sano ka hor, waxaa la filayay in walxaha goobtan ku jira ay isku xiran lahaayeen si ay u noqdaan meera. Si kastaba ha ahaatee, saamaynta cufisjiidka Jupiter ayaa ka hor istaagay intaasi dhacdo, iyada oo eegga si xoog leh u dhaqdhaqaajisay, si ay isku dhacyada u noqdaan kuwa dumisa halkii ay ahaan lahaayeen kuwa wax dhisa. Waxa maanta ka hadhay waxaa ku jira kaliya qiyaastii 3 oo ka mid ah culeysyada dayaxa oo ku kala firdhay malaayiin kiiloomitir. Saamaynta Jupiter ma ayna eegga ku dhammaan. Isku dhuuqashada cufisjiidka, meelo bannaan oo wakhtiyada wareega asteroidsyada ay la sameeyaan isdhexgal joogto ah Jupiter, Saturn, iyo xitaa Mars, waxay xaalad daro keenaan wareegyada asteroidsyada, iyaga oo jeexaya qaybo xagga nidaamka qoraxda gudihiisa, halkaas oo dhulku ku jiro, ama dhinaca dibadda xagga wareega Jupiter. Qaybo ka mid ah asteroidsyada aan baxsan waxaa lagu shiidaa isku dhacyo isdhexgal ah oo loo beddelo ciidda meteorite-iyada. Koox awood yaqaano oo uu hogaaminayo Julio Fernandez oo ka socda Universidad de la República ee Uruguay ayaa si sax ah u xisaabisay sida ugu dhaqsaha badan ee dhammaadka walxaha xagasha asteroidka u socda. Waxay ogaadeen in xagasha asteroidka ay hadda lumi karto qiyaastii eber sideed oo ka mid ah qayb ka mid ah xagasha asteroidka ee weli ka qayb qaadanaysa isku dhacyada socda. Taasi waxay u ekaanaysaa tiro yar, laakiin waxay matashaa qulqul muhiim ah oo walxo ah marka loo fiiriyo wakhtiyada dheer ee koriinka nidaamka qoraxda. Waxaa ka dhigay natiijadan mid si gaar ah u xiiso leh, waa sida miisaanka lumay u kala qaybsamo aayahooyinka kala duwan. Qiyaastii 2 waxay u baxsadaan sidii asteroidsyo iyo meteoridyo marmarka gudbiya wareega dhulka oo mararka qaarkood si aad u muuqaal leh ugu soo galaya jawiga sida meteoriyada. 8 hadhay waxaa lagu shiidaa iyada oo isku dhacyo isdhexgal ah lagu beddelo ciid meteorite-iyo ah, oo quudisa iftiinka daciifka ah ee ciidda sodyacalka ee muuqata cirka habeennimada kadib qorax dhaca ama ka hor qorax soo baxa. Asteroidsyada caanka ah sida Eris, Vesta, iyo Pallas ayaa laga saaray daraasadda maadaama ay nool yihiin wakhti ku filan si aanay hadda uga qayb qaadan dhammaadka walxaha ee socda. Fahamka lumitaanka miisaanka xagasha asteroidka ayaa muhiim ah, waxayna leedahay saamayn toos ah oo ku saabsan koriinka dhulka. Jirada waaweyn ee ka baxsan xagasha kama baxaan bannaan, qaar waxay u socdaan xagga nidaamka qoraxda gudihiisa, halkaas oo ay noqdaan kuwa suurtagal ah inay isku dhufteen. Cilmi baadhista waxay soo jeedinaysaa in haddii heerka lumitaanka miisaanka hadda jira loo dedejiyo wakhti dib u dhaca, xagasha asteroidka ay noqon kari lahayd mid qiyaastii 5 ka culus qiyaastii 3-5 bilyan oo sano ka hor, iyada oo heerka lumitaanka miisaanka 2 jeer ka sareeya. Tani waxay si cajiib ah ula xiriirtaa caddaynta juquraafiyeed ee dayaxa iyo dhulka oo muujinaysa yaraanshaha duqaymaha bishii bilyan ee sannooyin ka dambaysay. Xagasha asteroidka waxaa badanaa loo tixgeliyaa inay tahay muuqaal joogto ah oo nidaamka qoraxdeenna, laakiin cilmi baadhistan waxay u muujisaa inay tahay qaab firfircoon oo tartiib u luminayay walxaha bilayaanno sannooyin ah. Lakabaha kulayska ee laga helay lakabka dhagxaanta dhulka ayaa u shaacinaysay wakhti aad u xoog badan oo ay xagaashii asteroidka oo culus ahayd ay u soo diri jirtay xaglo badan oo dhagax ah. Maanta, duqaymaha wuxuu u degay qulqul joogto ah iyadoo xagashu sii wadda hoos u dhac tartiib ah. Fahamka habkan ma caawino oo kaliya inaan dib u ururno taariikhda saamaynta ee qaabaysay dusha dhulka, laakiin sidoo kale wuxuu bixiyaa xogta muhiimka ah ee qiyaasida khatarta mustaqbalka ka timid walxaha u dhow dhulka.